Fariintani waxay ku socotaa wadaadada buufiska qaba ee jooga North America. maanta waxaa igu dhacay anoo cuntaynaya wadaad ila soo fariistay. maasha allah, wadaadka quruxdiisa looma geli karo. garb wuxuu leeyahay qurux badan, shaaribo jaran, surwaalka u gaaban, surwaal halafhalafa ma qabin, wuxuu qabay dhar ku dhegan oo xoogaa aan aadna ugu dheganayn, maxaa la dhahaa, kana yarayn kuna weynayn buu qabay. waa maasha allah, wadaad wuxuu ahaa isa soo ay ka muuqato karaamadii iyo maxaa la dhahaa iyo diintu ay ka muuqato. gar ciraa buu lahaayo wuu soo ag fariistay. haye see leeyahay waa iska wareysa khayr maasha allah. okay, taleefon baa wadaadka usoo dhacay. wadaadkii wuxuu bilaabay inuu qayliyo, dhaha haddii anigu sheekh meesha ma imaan karo, shaqaan hadda kasoo baxayo, waa shaqaynayaa, shaqaan kusoo laabtayo, ma imaan karo meesha, kuma imaan karo. meeshuna waxay u jirtaa uu sheegayo meesha uu magacaabay waxay u jirtaa meel aan aada u fogeyn weye. leeyahay meesha ma tegi karo oo maxaa iga rabtaayo, aniga waxa weeyaan dadka ugu xumaanahay, dadka ugu liitaanahay. marka kale taleefonka wuxuu ku leeyahay umalaynayaa waa lagu ammaanaayo, war baan kaa rabaayo saano hadda ii imow. wadaadka wuxuu bilaabay inuu qayliyo oo xataa uu ninkii wuxuu iska saaray buur buu iska saaray si aysan marnaba aysan u suurtagelin inay is arkaan. marka wadaadkii qayladii iyo wixii iyo ninkii oo uu si meel adag uga soo haray inuusan dib dambana ugu baahan, mar dambana aysan is arkin, aysan mar dambana kulmin, iyo meel adag buu saaray. wax kastoo uu dhihi karay oo ninkaa cayrinaya buu yiri waana qaylinayaa, isagoo dhanna wuxuu ku jiraa waa harjadaya isagoo dhan. marka wadaadkii waxaa kasoo booday dhidid waaweyn baa kasoo booday. markaas wuxuu leeyahay maaragtay sheekh, maaragtay wax ninkaan waxa uu sameyn maaragtay ya ninkaan wuxuu leeyahay imo wuu leeyahay wadaad waxa weeyaan qof walba inuu tusiyo waa garanayaa macnihiisa. ahay qof buu i tusinayaa waan ogahay. ha sheekh aniga muxuu ii leeyahay, muxuu igu yeerayaa. aniga yaab baa iga soo haray. waxaa yidhi sheekh istaji, waxaan maaragtay dhib ma lehe, meel waxaad joogtaa, waddan nabadaad joogtaa, waa fiican tahay. maxaa la dhaha qof ku tusinayo kuu tilmaamaya maxay tahay. marka isla markaba automatic waxaan u shakiyey inuu ninka ka shakisan yahay, uu ka baqayo inuu ninku jaajuus yahay. saas aniga soo maxaa la dhaha saas isla markaba iga dhaadhacday. marka waxaa ku yidhi waxaad joogtaa Maraykan baad joogtaa, ciddii kuu baahan cidna kuu soo mari mayso, waa lagu imaanayaa, waa lagu wareysanayaa. qof ma jirto hadda haddii waddan bilaanimada hadday ahaan lahayd sida Soomaaliya oo kale, dhehba qofbaa waa la shirqoolaya, shirqool buu wadaa buu lahaa, ninkani shirqool buu wadaa. taasa igu dhalisa umaleynaya inaan fikiro inaa dhinaca maaragtay safetygiis inuu xoogaa ka shakisan yahay. marka waa yaabay. waxaa yidhi Soomaaliya oo kale hadda hadduu joogi lahaa laga yaabi lahaa inuu aada uga walwalo safetygiisa, laakiin Maraykanka, dowladda Maraykanka hadday ku rabto toos bay kuusoo maraysaa, ninna kuusoo mari mayso. waxay wataan teleefanadaada bay haystaan, waxa weeyaan meeshaa maraysay la socdaan, waxyaalaha ku wada hadashi videogaaga iska duuban karaan. waxa weeyaan waxay cod kaa celinaysa male, access waxay ku leeyihiin aan caadi ahayn. marka adigoo Maraykan jooga inaad buufis isku ridi oo aad tiraahdi dowladda ay raadinaysaa, haddaad joogi lahayd duurka Soomaaliya, duurka haddaa ku jiri lahayd, waxa weeyaan wax la garan kara ahaan lahayd. laakiin ayagii baa dhex joogtaa, ayagii baa nabadgelyadaada sugaya, ayagiibaa maxaa la dhahaa, ayagiibaa waxay kusoo mareen immigration, ayagiibaa maaragtay maxaa la dhahaa, ayagaa ku ogolaaday inaad waddanka timaado, waddanka daraadooda ku joogtaa. maalinta rabaan kusoo qaban karaan, cid kaa celinaysaan wale, aabbaha, walaalka, adeerka, adaa soo doortay. doonashadaada waxay kamid ahayd inaad timaadid meel aadan isdifaaci karin, laguna difaaci karin. adaad doortay, adaa yimin meesha. waxa weeyaan buufiskan iyo wareerkan iyo wuxuu kugu kordhinayo male, safetygaaga waxba u kordhin maayo, wareer waxaan ahayna kugu siyaadin maayo, waxba ha shakinin. adduunka oo dhan waxaa buuxa muslimiin baa buuxda. waxa weeyaan adduunka waxa weeyaan muslimka numberkiisa waa 1.7 billion people. waxa weeyaan 3 hadii loo qaybiyo adduunka hal qayb baa muslina.
marka muslin ahaan lagu raad maaragtay muslin ahaan maxaa la dhahaa haddaad joogto waddanka dibaddiisa iyo siyaalo kale maraykanku isagoo hadduu rabo muslin ha raadsado laakiin ma uu rabo muslimka inuu iska hor keeno because muslimku waa ka tira badan yahay muslimka maxaa la dhahaa maraykanku asagaaba muslimka ka baqayaba adigu saa u baqaysi buu asaguna u baqayaa marka asagaa markaminba inuu dadkao dhan isku diro hadda videoyadan ay la soo istaagayaan tviyada ay leeyihiin muslimku waa dad fiican muslimku waa sidaan asxaanay muslimka u samaynayaan maaha waa muslimka ayagaa ka baqaya ayagaa waxay rabaan inaysa iska horkeenin dantooda ku jirta inaysa iska horkeenin oo inta yaroo ay rabaan is cayrsadaan marka muslimnimo haddaa salaadaada tukanaysa masaajidkaaga masaajidada waxaa yimaadaa obama soo gala bush baa gala kulligood madaxdooda gasha maalin kastay joogaan maalin kastay yimaadaan maalin kastay ka khudbeeyaan maalin kastay dadka la hadlaan marka meelnaba ha iska dhigin nin qoyan oo raba inuu biyo iska ilaaliyo kalaata meel kaste waxa weeyaan way joogaan askarta meel kasta maraykanka joogaan buufis ha isku ridin adiga ha iswareerinin dadkan ha wareerinin haswaalin dadka waaliha ku ridin istaji marka maalin kale waxaa dhacday waa tusaalihii labaad oo wadaad buufis qaba aan kusoo qaadanayo waxa weeyaan wadaad aan qaraabo fog aanan ahayn baa wuxuu igu yiri meel baa isku aragnay marka wuxuu yiri waa tegi rabaaye maxaa la waxaan rabaa boorso inaad guriga ii dhigti gurigaaga boorsadayda ii dhig marka waxaan ku yiri okay dhib male keensaa iri boorsada haddaa safar gelayso meel aadayso dhib male keenso boorsada waqtigaa keenso marka wuxuu yiri okay saa markaan wada hadlaa waxaan ku yiri goormaa baxaysaa markaas wuxuu igu yiri waxaas laysma weydiiyo waxaas ay weydiinin waxyaale aan lays weydiin baa jira waqtiga qofku baxaya iyo meeshu ka baxaya iyo waxaas laysma weydiiyo war ilaahay amarkiis waa sheeka ma ogi ma fahmin sheekada qaybkaas waxa weeyaan buufis qof buufis qabo weeye muxuu aniga iga qarinayaa inuu meeshu ka baxay iyo maxaa iga galo iska wareystay asagaan igu yiri maxaa la dhahaa alaab guri iyo dhig iyo waxaas iyo asagaa igala warramay maxaa la dhahaa inuu safarkiisa inuu baxayo inaan hal su-aal weydiiyo kuma gardarni mid kale waxaa jirta ayadana tusaalihii saddexaad weeye hadda mar kale waxaa jiray hadda ka hor adiga sanado aada u fara badan ka hor bulshada maxaa la dhahaa dowladda maraykanku waa ka shakisanaayeen bulshada soomaalida marka wadaadada iyo maaragtay guryahay ugu tegi jireen maxaa la dhahaa communityga shirin jireen maxaa la dhahaa dad bay ka nixin jireen oo ka bajin jireen say rabaan waxay rabeen inay dadka ka bajiyaan communityga inay ka bajiyaan handadaad baa ku jirtay qof aan ogeyn oo iska maskiin ah oo aan waxba la socon ba intay sawirkiisa qaadaan iyo bulshada kusoo dhex wareejin jireen oo oran jireen qof hebel maaragtay marka qof haddii loo sheego la dhaho dowladda ku raadinaysay ama maxaa la dhahaa sawirkaagaa la wadwada dowladda wado qofka waxaa ku dhacaya isagoo dhan shock wuu baqaya isagoo dhan qofkan waxa galabsan iyo mid kaste dadkii oo dhan cabsi baa ku dhacaysa waxaa la dhahaa argagax baa ku dhacaya qofka marka hadda ka hor bay waxay sameeyeen maxaa la dhahaa bulshada isugu yeereen oo waxay dhaheen okay waxaa idinla shiraya FBI da idinla shiraysa FBI dii communityga shiriyeen marka wadaadadii baa yimid wadaadaha kasoo qayb galay marka wadaadadii waxay bilaabeen intuu kala badbato asagoo dhanba isku dhex yaaco inuu dhaho annaga waxaas ma nihin dad ma nihin maaragtay dhib wada anaa kuu sheegaya dadka dhibka wada waa ciyaalka yaryar oo magaalada jooga waxa weeyaan kuwaasaa gangs leh kuwaanaa sidaana ciyaalka wuxuu balaya inuu asagoo intuu culayskii iyo balaayadii iska wareejiyo inuu qof kaloo soomaaliyeed ama qof kaloo muslim inuu rabaa inuu madaxa u geliyo oo xataa aan galabsan adiga naftaadaa kala baqday dhibaato iyo balaayo adiga istifaacaya saasay tahayna qof kala rabtaa inaad dhibaataysid oo aad wuxuusa galabsan inaad madax u gelisi oo aad tiraahdi nimankaas dadkaasa wax samaynahaya kolley dowladdana markaas ma aadan caawin oo waxaad ka khasaarisay waqti iyo lacag baad ka khasaarisay oo meel kale kusii jeedisay oo aysan waxba ka heli lahayn marka adiga waxa muhiimaddu waxa weeyaan waxa adiga aan naftaada u diiday oo naftaada aa kala baqday qof kale ha u geynin oo maaragtay qof kale dhibaato ha u soo jiidin
marka taasi waa tusaalihii saddexaad oo wadaad boofis qaba oo jooga North America. marka wadaadada boofiska qaba maxaa la dhahaa istijiya, maxaa la dhahaa dadka ha iswaalinina, boofisna madax xanuun iyo waali ha isku ridinina, dharkeena ha ka didinina. maxaa la dhahaa haddii aad baqaysi wadanka ka tag, meelaha kale aad, wadamada kale aad oo aad isleedahay waa ku nabadgelaysaa. maxaa la dhahaa teeda kale videoga muhiimadiisu aan soo duubaa waxay tahay wadaadnimadu hadday dhib iyo boofis kusoo jiidayso waxaa lagu qaataa adigoo iska yareeya oo wadaadnimada xoogaa hoos u dhiga, oo wadaadnimada dhima. iska daa ku oran mahayo, laakiin wadaadnimada dhin xoogaa raggaaga iskala joog. maxaa la dhahaa ma garanaya de waxa samaynaysa adaa garanaya si aad maaragtay aad iskaga dhigta caadi. anigu ku oran maayo kulley sigaar cab iyo ku oran maayo iyo kulley ciyaalka dadka iska dhexgal meesha iska bulsho weynta iska dhexgal caadiga, because wadaadnimadaadii waxba kuuma kordhin aan dhibaato ahayn. boofis bay kugu riday, aakharana waad seegtay, adduunna waad seegtay. marka inta aakhare seegi lahayd iyo adduunkaba at least aakhare kaliya seeg. oo maaragtay waxay ahayd wadaadada waxay dhahan waxaan ilaahay qadarin kugu dhicim hayaan. war sheekhu maad ogaatay saan maa u ogaatay adiga dadka waxaad ku leedahay wixii ilaahay kuu qadaray kaliya kugu dhacaya. saasoo tahayna dadkana waad u sheegaysaa, adigana ma aaminsanid. marka wadaadada aniga maaragtay waa taageersanahay, laakiin wadaadada boofiska qaba wadaadadaas xoogaa in wax loo sheego weeye, baqdinta iska daaya iyo maaragtay iyo maxaa la dhahaa boofiska caafimaadkaaga uma fiicna, bulshada uma fiicna, adiga kuma fiicna, dadka iyo adigu iska kaa horkeenaya. waxaa lagu arkayaa inaad tahay nin waalan, waanad waalan tahay haddii aad boofis qabtid. maxaa la dhahaa kolley dee geeri iyo nololba ilaah baa haya. maxaa la dhahaa iska noolow, tartiib isdeji, ha iswaalin, madax xanuun ha isku ridin. marka intaas bay kusoo eg tahay oo kusoo gabagabowday qaybta wadaadada. mar kalena inaad maqashaan waa suuragal. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.